dabayaaqadii sanadkii tagay uu ka soo bilowday magaalo ku taala dalka Shiinaha hase ahaatee waxa uu ku sii faafayaa doc kasta oo dunida ka mid ah maanta. qarnigan la joogo caalamku waxa uu gaaray xagga tiknoolajiyada heer aad u sareysa xilli dunida ay gaartay in aad mobilkaada gacanta ka dhex maamusho hawl kasta oo dunida aad uga baahan tahay. sawtiiba lagu ogaaday fayraskan waxay aadmigu isu arkeen in ay awood leeyihiin ayaha caalamkuna iyaga gacantooda uu ku jiro. taasi yeelkeeda waxa uu Ilaahay soo diray mid ka mid ah abuurkiisa kaas oo isha aadmiga aysan qaban karin, wuxuuna weerar ba'an ku qaaday addoomihiisa isaga oo karantiilay waxba kama jiraana ka dhigay horumar kasta oo aadmigu gaaray dhanka tiknoolajiyada. waxaa gabi ahaanba istaagay dhaqdhaqaaqyadii isu socodka caalamka, bad iyo beriba cabsi laga qabo noolahan ilma aragtada ah. waxaa guud ahaanba yaraaday horumarka aadmiga sameeyey sida waxbarashada, wax soo saarka iyo wixii la mid ah. waxaa sidoo kale istaagay fasahaad kasta oo aadmigu abaabuli jiray. dhibaato kale oo intaasi ka daran waxa ay ahayd kadib markii suuqyadii dukaamadii noqdeen kuwa haawanaya oo cuntooyinkii laga dhamaystay inta hartayna safaf dheer loogu jiro, xilli dadka ay isu diyaarinayaan xabsi guri uu sababteeda leeyahay noolahan aanun ishu qaban karin. waa fariin cad oo ka timid Allah xaggiisa, taas oo muujinaysa in aadmiga horumar kasta uu gaaro aanun waxba ka ahayn Eebba xaggiisa. waxa ay fariin u tahay kuwa kibray maamulka koonkana iyagu isku koobay. waxa ay digniin u tahay kuwa gaboodfallada geysanaya. sidoo kalena waxa ay waana u tahay kuwa ku jira qafladda in ay Eebba u soo laabtaan inta aysan ajashu asiibin. waa xaalad u baahan in looga gudbo iimaan dhab ah iyo danbi dhaaf Eebba la weydiisto. Allah ka hayo dhammaan muslimiinta ku nool caalamka.